والسلام على رسول الله وبعد واد سلامتين دمانتين ملكسات جوجتان waxaan rabaa inaan la wadaago arrin mucjiso ah oo aad u yaab iyo ama kaag badan taas oo ah hooyo hal mar dhashay 9 caruur ah Halima Ciise oo ah gabadh 26 jir ah u dhalatay wadanka Malawi ayaa bishii shanaad ee sanadkan waxa ay ku dhashay hospital ku yaala dalka Morocco 9 ilmood waa 4 wiil iyo 5 gabdhood caruurtan oo la sheegay inay dhammaantood badbaadeen caafimaad qabaan maalinta ka dambaysa ay korayaan kana soo ficnaanayaan rekoorkan ama kaydkan oo kale ayaa waxa la sheegay in adduunka hadda ka hor laba dal laga diiwaan galiyay labada dal oo kala ah wadanka Australia iyo Malaysia oo laba hooyo oo kala duwan mid walba ay 9 caruur dhashay laakiin aysan midna u badbaadin ee dhammaantood caruurtaasi ay ku dhinteen maalmo gudahood caruurtan ayaa waxa la sheegay in ay caafimaad qabaan aadna ugu fiican yihiin dhammaan waalidka dhalay iyo dhaqaatiirtii gacanta ku hayayna ay aad ugu faraxsan yihiin ilaahayna uga mahad celinayaan Halima ayaa sheegtay in caruurtan ay maalintii laga bedelo xafaayado gaadhaya 100 xafaayadood maalin walba isku celcelis sidoo kalena inay cabaan caano gaadhaya 6 litir Halima ayaa tiri in la dhalo hal ilmo waa waxaad u hawl iyo dib badan laakiin in aad dashid 9 caruur hal mar oo hoostaada laga soo qaado waa waxaan la qiyaasi karin iyadoo sharaxaysa sida ay u umushay ayaa waxay tiri markii caruurtu soo baxayeen waa la socday sida wax u socdaan ama wax u dhacayaan waxaana isweydiinayay su'aalo badan waxayna u ekayd in caruurtu u soo baxayaan sidii durdurkii oo kale ama il burqanaysa oo aan dhamaad lahayn waxay tiri waxa ila joogtay walaashay oo gacantay haysay laakiin waxa kaliya oo aan ka fikiray waxay ahayd sida aan u karin doono caruurtan 9 ah ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala iigu daaqay alla sheegay caruurtan xanaanadooda in ay ilaa hadda ay ku baxday lacag gaaraysa $1 milyan oo ay bixisay dawladda dalka Malawi dhaqaatiirta ayaa sheegay in Halima ay ku sigatay inay u dhimato dhiigbaxa dhalmada waxay kaloo sheegeen in ay caloosha ku waday culays gaadhaya 30 kiilo oo caruurta iyo xabkooda ahaa reerka Halima oo la yagleelay 2017 ayaa waxay hore u lahaayeen hal gabadh oo kaliya oo la yiraahdo Sauda Kadir oo ah aabaha caruurtan dhalay ayaa waxa uu sheegay inuu aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahad celinayo inuu u badbaadiyo 9 caruurta iyo hooyadood oo khatar runtii aad ugu jiray sidoo kale waxa uu qiray in ay tahay arrin dhaqaale ahaan culeyskeeda leh in hal mar la wada koriyo 9 cunug waxa uu sheegay in isaga iyo xaaskiisuba ay aad u faraxsan yihiin ayna helayaan fariimo aad u badan oo kala duwan oo isugu jira hambalyo iyo taageero oo ay ka helayaan habeen iyo maalinba adduunka daafihiisa kala duwan reerkan ayaa dhaqaatiirta dalka Malawi waxay hore ugu sheegeen in ay Halima siddo 7 caruur laakiin dhammaantood ay haystaan fursad ka yar 50% in marka ay dhashaan in ay badbaadaan laakiin Ilaahay keligii baa wax abuuri kara Ilaahay keligii baa wax dila Ilaahay keligii baa wax nooleeya walaalayaal koonkan iyo adduunkan aynu ku noolnahay waxa ka buuxa mucjizooyin haddayna u fiirsanno Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaynu rumayno oo aaminno oo raacno mooyaane aynaan khiyaar kale iyo choice kale lahayn cirkan inaga sareeya oo aynaan u jeedin waxaya oo sida u weyn dhulkan sidan u fidsan badahan iyo wabiyadan iska raacaya dhulkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida loo sameeyay oo u cuntama saalixa u ah ku wanaagsan in lagu noolaado Ilaahay bayna subhanahu wa ta'ala ugu mahadinaynaa nimcada caruurta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa qofku doona siiya gabdho ku doona wiilal siiya ku doona isugu dara ku doonana ka dhiga madalays aad